wafdi ballaaran oo hogaaminayo wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo socdaalkiisa ku weelinayo agaasimaha cuqaasha iyo nabadgelyada ee Soomaaliland ayaa soo gaaray gudaha magaalada Ceergabo. wafdidan oo lagaga hortagay duleedka magaalada Ceergabo ayay ku qaabileen mas'uuliyiinta maamulka gobolka iyo mas'uuliyiinta maamulka degmada madaxda dhaqanka shaqaalaha dawladda hoose iyo dadweyne iyo gaadiid aad u tiro badan. waxaana wafdidan loo soo galbiyay dhinaca iyo magaalada madaxda gobolka Sanaaga Ceergabo iyadoo la soo mariyay dhammaan bashaaracyada iyo wadooyinka waaweyn ee magaalada. waxaana ugu dambeyn bay wafdidu isugu soo biyay shubtan qasriga martida ee magaalada Ceergabo. waxaana wafdidan ballaaran uu hogaaminayo wasiirka wasaaradda arrimaha guduhu oo goreynba cutub ka tirsan ciidanka booliska ee gobolka Sanaag ay kaga qaateen salaan sharaf. waxaana ugu horeynba halkaasi ka hadlay gudoomiyaha gobolka Sanaag Cali Cabdi Hurre oo u mahadnaqay dhammaanba dadkii soo dhaweeyay wafdidan. waxaana uu gacmo furan ku soo dhaweeyay wafdidan hogaaminayo wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha. waxa isaguna halkaasi kelmado kooban oo mahadnaq iyo ducaa ka soo jeediyay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha jamhuuriyadda Soomaaliland Dr. Maxamed Cabdi Gaboose ayaa ugu horeynba u mahadnaqay bulshaweynta iyo xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland sida hagar la'aanta ugu soo dhaweysay gobolkan. waxaana uu Ilaahay ka baryay inuu amaska iyo abaarta baan ay ka jirto guud ahaanba gobolka uu Ilaahay ka jabiyo. waxaana uu sidoo kale wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha jamhuuriyadda Soomaaliland Dr. Maxamed Cabdi Gaboose ku xog waramay ujeedada socdaalkiisa oo ku sifeeyay kurgalida xaaladda guud ee gobolka Sanaag dhinacyada caafimaadka biyaha abaaraha iyo waxyaabaha kale ee asaasiga ah. waxaan idin sheegayaa safarkaygan waa safar kormeer waa safar hawleed oo aan ugu talagalay madaxweynuhuna uu igu soo diray inaan imaado gobolada dalka oo aan u soo kuurgalo xaaladda dadku ku nool yahay xaaladda maamul baahida taal soo dhageysano wixii lala qaban karana markaa lala qabto wixii kale ee qorshaana aan isaga kula noqdo iyo qaranka intii kale waxaan markaa si dhaqso ah u bilaabanaynaa hawsheenii. mar labaad waxaan ducaynayaa Ilaahay gobolkan ha ka dhigo gobol barwaaqo, Ilaahay ha ka dhigo gobol nabadeed, Ilaahay waxaan ka baryaa dadka degan inay noqdaan kuwa mida oo isjecel oo dad dantooda u jeesta. waxaana wafdidan ballaaran uu hogaaminayo wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha jamhuuriyadda Soomaaliland Dr. Maxamed Cabdi Gaboose uu socdaal ku soo gaala bixiyay deegaanada Garadag iyo Ceelaf Weyn halkaas oo kulamo gaar ah kula qaatay mas'uuliyiinta deegaanadaasi. وطني مركي وجورس وفدي وقامنا وزيرك وزارة الرماء جودة جمهورية الصوماليلاند دكتور محمد عبد القبوس تاني أنت حكومة وقامية مدحونة سيلايو أهل كاسوق متوقسو قارو جودة مقالتاني عبد الناصر خالد تلفزيون كعالمي الصومالي جانل مقالة عرقابو.